السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن السلام أصحاب تقاليد ميل بعدون كجوكتي وولاشين ديقو جنال كيغان وديق حلنا ولا ليغا قالي وإما هدسنتهين مر لوادي مرسد هاد بايدين مهد علنا سيد وناكسنا دي قرب استاكتان ودي دير قلسان وحانا إذن ليهاي عافمات كوارا إن شاء الله دمانتين نبا أنا كان sidoo kale walaashin deeq caaw maxay idin wadaa caaw waxaa idin dhammaystirayaa boqoradii jaceylka guriga lagu xiray ayaa idin dhammaystirayaa daawasho wanaagsan waxay tiri boqoradii habeenkii waxay ku dhamaatay iyadoo aabaheeda dhahayo gurigaaga dib ugu laabo yuunan hooyadaada kugu qaylinine gabadhu waxay ahaan jirtay boqorad guri lagu ilaaliyo ama guri ku jirto qasrigaas aadka u weyn looma ogolaan jirin inay uga soo baxdo dibadda ama banaanka waxaa la dhihi jiray mar walba halkaaga ku jir oona ma soo bixi kartid banaanka boqoradii maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa loo sameeyay dhalasho aada u qurux badan waxayna gashay sanadkii ay ku weynaanaysay ama ay qaangaarka ku noqonaysay waxayna qatay 18 jir waxaana loo dhigay xalfad aad u qurux badan boqoradii waxay ka baxsatay gurigeedii oo ay ku aheeday xabsi guri ma maqashay gurigii ay ku jirtay xabsi guriga ayay ka baxsatay boqoradii waxayna aaday banaanka ayay aaday waxaana ku caawisay saaxiibadeeda qaaliga ah boqoradii banaanka ayay u baxsatay banaankii markay tagtay waxay qayliso waxay tiraahdo waan kasoo baxsaday ayay tiri qasrigii albaabada u xirnaa waanan u soo baxay ayay tiri banaankii hawada macaaneyd oo jawiga quruxda badnaa lagu qaadanay caawana waxay ii tahay ayay tiri habeen aad u farxad badan ayaan ka wadaa waan gafayaa habeen aad u farxad badan ayay ii tahay ayay tiri waxaanan u soo baxay dibadda guriga banaankiisa ah gabadhii way carartay waxayna tagtay meel celebrationka lagu qaban jiray ama farxadaha ayay timiday gabadhii waa ay qaylisay waxay tiri dad yahow waxaan idinla wadaagayaa arrin aad u farxad badan ayay tiri iyadoo kala badatay gabadhii waxayna tiri soo dhawaada waxaanan idin leeyahay caawa arrin farxad leh kusoo dhawaada ayay tiri dadkii meesha joogay dhammaan ayaa gabadhii dib usoo fiiriyeen waxayna dhaheen maxay tahay gabadhan miyay riyoonaysaa qarow miyay kasoo kacday maxay hadeeroo habeen ah la qaylinaysaa gabadhii ilaa gurigeeda ayay kasoo baxsatay sooma waxay tiri dadweyne waxaan idinla wadaagayaa caawa waxaan ka xuroobay ayay tiri qasrigii albaabada u xirnaa waxaanan u xuroobay ayay tiri banaankii hawada macaanaad ama liirta macaan ka dhaceysay dibaddii ayay ku qaylisay wiil ayaa ka dhex dhagaysaday iyadoo meesha ku qaylinayso wiilkii waa uu soo cararay wuxuuna yiri anigana waan xuroobay waxaan ka xuroobay ayuu yiri aabahayga oo igu qaylin jiray mar waliba oo i dhihi jiray maad guursatid maxaad meesha u joogtaa minaad guursata ayaan rabaa maxay tahay nin qaangaar ayaad noqotay waxaan doonayaa inaad u badasho ana waxaan ka xuroobay aabahayga qaylada badnaa ayuu yiri wiilkii wuxuuna usoo baxay gabadhii halkii ay ku qaylinaysay boqorada ahayd oo kasoo baxsatay gurigeedii gabadhii waxay tiri wiilkii waan ku salaamay wiil yahow bal ii waran maxaa adigana u qaylisay maxaa kaa qaylisiiyey maxay taa dhibaatada ku haysata wuxuu yiri anigana dhibaatada adiga aad la qayliso kale ayaa i haysata sababta oo ah wuxuu yiri ana waxaan kasoo baxsaday ayuu yiri xaafad borogbaleemkeeda badan yahay ama la isku kontaroolayo maad guursatid maad horumar samaysid war maad ubad dhashid
warmaad istaagtid, warmaad socotid leeyahay baan kasoo baxay ayuu yiri. Waxaana u soo baxay ayuu yiri dibadda, waxaanan joogaa ayuu yiri banaanka. Dibadda hadda adiga dibad meel dheer ma waa banaanka adoo tegay ama banaanka hawo macaan kusoo qaatay, leer macaan kusoo qaatay, jawi qurux badan kusoo qaatay. Maasha Allah, adiga waxaan ku dhahay farxad kusoo helay. Wiilkii wixii tiri gabadhii maasha Allah, ilaa adigana waxaad ahayd qof guri ku qunfulan amba ku xiran qasrigeyn oo kale. Anigana waxaan kasoo cararay ayay tiri qasrigii aadka u weynaa oo ku yaala ayay tiri xaafad Hiblaayo ayaan kasoo baxsaday. Waxaana uga soo baxsaday ayay tiri hooyadeyda ayaa waxay necbeed inaan aado banaanada ama meelaha lagu haasaabo ama meelaha lagu cayaaro ama meelaha lagu kaftamo ayay ii diidi jirtay ayay tiri. Sidaas darteed ayaa waxaan go'aansaday ayay tiri inaan isaga baxo qasrigan. Caawana waan soo baxsaday, waxaanan joogaa ayay tiri guriga banaankiisa ama dibadda banaanka ayaan joogaa. Waxay yiri waaba arrin aad u wanaagsan, maxaad reerkaaga uga soo baxsatay? Adiga waxaa tahay ayuu yiri dumar, mana tihid ayuu yiri sidii ragga camal. Sababta oo ah dumarka wuxuu yiri waa hilib geed saaran, loomana ogola ayuu yiri inay tagaan banaanada ama meelaha lagu haasaabo ama meelaha lagu wareego inay tagaan maba ku habboona ayuu yiri. Gabarna waxay ku habboon tahay in ay joogto guriga reerkeeda ama guriga waalidkeeda inay joogto. Waxay tiri taas ma diidani ayay tiri, waana ay ku habboon tahay gabadha in ay joogto guriga waalidkeed. Waa haddii ay ku haysato farxadaha kala gedisan sida horumarka, farxadda guriga, damaashaadka. Laakiin haddaad maqbiyo ku tahay, guri ku xiran tahay, lagula hadlin, lagula sheekeynin, mar walba lagu farxad gelinin, kuma noolaan kartid ayay tiri. Waana nolol cariiri ah, mana u dulqaadan kara ayay tiri in aan ku noolaado noloshaas aadka u adag ayay tiri gabadhii. Wuxuu yiri hadda waa yaabe, sidee baad doonaysaa walaalo? Bal ii sheeg, noloshiiba kasoo carartay, gurigiini waad ka timiday, waxaad timid banaankan, haye hadda maxaad sameynaysaa? Waxay tiri waxaan sameynayaa horumarka nolosheeda, waxaan sameynayaa inaan hore u sii socdo aan marna dib u noqonin. Waxaan dareemayaa, waxaan rabaa inaan sameeyo in aanan gurigii xirxirnaa ama gurigii albaabada u laabnaa aaban dib ugu laabanin ayay tiri. Wuxuu yiri arrin ayaan kuu hayaa aad ku badbaadi kartid, gurigaagana aad ku noqon kartid, farxadna aad ku dareemaysid, murugana kaa dheer ayaan kuu hayaa ayuu yiri wiilkii. Waxay tiri waad mahadsan tahay walaalkaygiyo, bal iila wadaag arrintaada. Wuxuu yiri hadda waxaa dhacday ayuu yiri arrimo aad u fara badan. Wuxuu yiri waxaa jira arrimo la isticmaalo wadankii hore oo qarniyaashii hore laga soo tag, hadda waxaa yimid qarni cusub. Wuxuu yiri waxaa jira internetyo oo hawada laga sheekaysto, waxaa jiro yiri aalado la isticmaalo Facebook, Instagram, YouTube, anything, wax walba oo la iskula xiriiri kara ayaa jiro. Marka wuxuu yiri aniga waxaan kugula talin lahaa walaasheydii inaad gurigiini ku laabato, boqoradii wadankay, boqoradii la jeclaayay, familkeeda jeclaayeen oo guriga kusoo xirteen ay iska laaba ayuu yiri wiilkii. Waxay tiri kuma laaban doono, sababta oo ah ma u dulqaadan kara ayay tiri in aan galo murugo ama dhibaato. Sababta oo ah hadda ayaanba si dhibaato la uga soo baxsaday ayay tiri oo ma doonay inaad dib ugu sii laabta ayay tiri gabadhii. Wuxuu yiri abaayo taladayda qaado, reerkaaga ku noqo, gurigaaga ayaad ku wanaagsan tahay ama aad ku habboon tahay. Wiilkii waanadiisa ayay qaadatay, gabadhii gurigeeda ayay dib ugu noqotay. Boqoradii gurigii markay dib ugu noqotay, wiilkii ayaa wuxuu yiri habeenkii markay guriga ku noqonaysay wuxuu yiri aalado la isticmaalo ayaa jira soo maahan. Gurigii markay dib ugu noqotay waxay tiri ma rabo in aan tago
banaanka, ma rabo inaan kasoo dego qolkayga, waxaana rabaa 24 saac oo soo socda in gurigayga laygu maamulo. Waxaan cunay waxaan cabay intaba layna keeno ayay tiri computer aan isticmaalo ama laptop sida aad u taqaano. Waxaa la yiri waaba arrin wanaagsan, gabadheeni waxay noqotay gabar fiican, gabar aad u wanaagsan. Waa in loo keenaa laptopka ama computerka ay dalbanayso ayay tiri hooyadii guriga ka talinaysa boqoradii weyneed. Waa loo keenay, gabadhii waxay noqotay gabar gurigeeda isaga xiran, habeen iyo maalin isticmaasho aaladahaas facebooka, instagramka, meel walbo ka isticmaasho. Wuxuu yiri boqoradeenii facebook ayuu ku soo darsaday gabadhii wiilkii, waxay noqdeen laba qof oo aad isugu dheer, laba qof oo jecel wadaagto, galgacayl, maasha Allah. Wiilka shalay ayaa gabadhii ku celiyay gurigii soo maahan, gabadhiina wiilka dartiisa ayay ugu noqotay gurigii. Wuxuuna yiri bartaada joog, gabar waxay ku habboon tahay inay joogto guriga reerkeeda. Waa ay ka aqbashay, gabadhii waxay jeclaatay wiilkii, wiilkii wuxuu jeclaaday gabadhii. Sidee la isku arkayaa? Waa marka gabadhii waxay go'aan ku gaartay inayna u soo bixin banaanka. Wiilkiina wuxuu yiri ku noqo reerkaaga. Wiilkii maalmaha kamid ayuu wuxuu soo raadiyay gabadhii, wuxuu yimid qasrigii ay ku nooleed. Wuxuu yiri reerkeedii waan idin salaamay, reer hoosee la yahay, waa la fiican yahay. Wuxuu yiri waxaan u baahanahay boqoradii guriga. Waxaa la yiri 2 boqor ayaa jirto, tidee waa u baahan tahay? Wuxuu yiri midda ugu quruxda badan leh. Waxaa la yiri labadaba way ay qurux badan yihiin, tee baad doonaysaa? Wuxuu yiri midda ugu gaaban. Labadoodaba way gaaban yihiin, tee baad doonaysaa? Wuxuu yiri labadooda tii dhalinyar, labadooda tii dhalinyar ama labadooda tii yar, macnaha labadooda tii yar ama aan duq ahayn oo yar. Waxaa la yiri mid ayaa yar, midda kalena waa midda yar, midda dhashay waa hooyadeedii. Wuxuu yiri gabadha yar ayaan haddaba doonayaa in aan la kulmo. Waxaa la yiri lama hadli kartid, waxayna ku jirtaa qolkeeda, mana ogolo in ay u soo baxdo dibadda. Waa ay iska mamnuucday. Go'aankaas waxay gaartay habeenkii ay ka soo laabatay banaanka. Wuxuu yiri marsaas haye fariin ayaan idinkugu dirayaa, u geeya ayuu yiri fariinteyda ama akhbaarteyda u gudbiya. Waayahay ayay dhaheen, farqadii ayay qaadeen, waxayna u geeyeen boqoradii yareed. Wuxuuna yiri abaayo sidee baa tahay, ma kaa ba'day murugadii iyo weliba dhibaatadii? Haa ayay tiri, waan iga tagtay dhibaatadii faraha badneed iyo weliba murugadii iyo weliba cariirigii. Warqad kale ayay u soo dirtay oo jawaab ah. Haddana waxay tiri aad ayaanba u faraxsanahay, farxadeedana lama qiyaasi karo. Waxaana helay ayay tiri qof aan aad ugu faraxsanahay ama qof aan mar waliba ku qanciya ayay tiri nafsadeyda oon aad ugu wanaagsanahay. Ayay gabadhi u soo jawaabday wiilkii warqad kale ayuu qoray. Wuxuuna yiri bal ii soo sheeg qofka aadka u wanaagsan oo adiga aad heshay, kaana bixiyay nolosha aadka u adkeed, dhibaatada u lahayd. Qofkii kaa soo bixiyay bal iiga soo jawaab ayuu yiri. Warqadii ayuuna sidaas ugu soo qoray. Waxay tiri haa wuxuu ku dhex nool yahay ayay tiri facebooka, lama arko, waa lamaanaha aanan la arkin ayay tiri, laakiin aadka uu codka macayay tiri. waaw aad ayuu cod macayay tiri, mana la arko lamaanahaas. Wuxuuna ku dhex nool yahay tiri aaladda facebooka. Wuxuu yiri warqadii ayaa u timid wiilkii wuuna akhristay, waxaana ku qoran wuxuu ku dhex nool yahay facebook kumanaan ayaa ku dhex nool soo maahan, oo qalbiyadooda ku dhex noolo habeen maalin saas ay u dayayaan ay ku daalaan. Marka wiilkii warqad kale ayuu u qoray.
wuxuu yiri qofka Facebook aadka ugu jeceshahay ama ku dareensiiyay dhadhanka nolosha ama farxadda nolosha, bal ii sheeg ayuu yiri magaciisa, waxaan doonayaa in aan la xiriiro. Waxay tiri gabadhii, wallaahi waa nolol aad u qurux badan, laakiin weli wax magacaba looma sameyn ayay tiri. Waxay tiri wax magacaba looma sameynin ayay tiri, sababtoo ah maba isgaranayna ayay tiri. Waxaan iskala xiriirnaa barta Facebook aan ku leeyahay, asigana wuxuu igala soo xiriiraa barta uu Facebookiisa ku leeyahay. Wuxuu yiri hadda waayahay sidaas ha noqotee, bal ii sheeg ciwaanka uu ku soo galo Facebook. Qof walba ciwaan ayuu ku soo galaa, Soomaa magac hebel, barnaamij hebel, hebel ayuu ku soo galaa, Soomaa Facebook la iskama soo galo. Waxay tiri wuxuu ku soo galaa jaceylkii midoobay ama qalbiyadii midoobay ayuu ku soo galaa. Wiilkii aad ayuu u farxay, waa uu boodbooday, waa uu iska daba dhacay. Alla maanta ayaan helay ayuu yiri farxadeeda nolosha. Maanta ayaa helay ayuu yiri farxadeedii nolosha. Sababta oo ah wuxuu yiri qofkii aan muddo ka raadin jiray ayuu yiri barta Facebook hadda ayaanba helay, waana nolosheedii ugu dambeysay, waxayna noqotay boqoradii yareed. In aan helo ayaanan doonayaa ayuu yiri. Muddo ayaan ku raadiyay, waxaanan rabaa in aan kula kulmo, waxaanan ahay ayuu yiri qofkii aad raadinaysay oo ku dhex noolaa barta Facebook. Gabadhii ayadana sidoo kale waa ay booday, waa dhacday. Waxay tiri wallaahi farxadeedu waa farxad lagu daraa ayay tiri, inta laguma soo koobin karo. Sababta oo ah caawa waxay heshay ayay tiri boqorkeedii Facebook ay ka dhex raadin jirtay, waana kan hadda u soo qoraya warqadaha ama dhambaalaha jaceylka. Waxay tiri waxaan rabaa inaan ku arko wejigaaga ama inaan arko face-kaaga. Waxaan soo istaagayaa daaqadda qolkayga, adigana waxaad soo istaagtaa banaanka ku aadan daaqadda qolkayga. Wiilkii asigoo cararaya ayuu yiri haye waa ikan, waanan imiday, waxaanan taaganahay daaqadii qolkaaga. Gabadhii waxay soo istaagtay daaqadii qolka, waxayna aragtay wiilkii habeenkii sida wanaagsan u waaniyay, haddana noqday qofkii ay jecleed ama ay kasoo dhex dooratay aaladda Facebook. Qofkii ay nolosha la wadaagi rabtay ayuu noqday, gacaliyaheeda khaaska ayuu noqday. Gabadhii farxad darteeda ayay waxay uga soo booday halkii daaqadda ahayd, waxayna isu soo tuurtay dhankii wiilka taagnaa. Wiilkii waa uu naxay, wuuna argagaxay. Wuxuu yiri alla ma intii aanan ku hananin ayaad doonaysaa in aad iska qaado nafsadaada ama aad dhibaatayso. Waxay tiri farxadeeda lama soo koobi karo. Maanta wixii igu dhacana waa wax qadar ah oo aniga ii qornay ayay tiri. Haddii aan dhinto waxaan tegi doonaa halkii eebbahayga igu talagalay, haddii aan noolaadana waxaan hanan doonaa ayay tiri jaceylkaygii Facebook aan ka bartay ama gacaliyahaygii markii horeba i waaniyay oo i yiri gabar waxay ku habboon tahay inay ku nooshahay guriga waalidkeeda. Marka wiilkii sidaas wanaagsan ayuu gabadhii u waaniyay, waanadeeda way qaadatay, waxayna noqdeen laba lamaano oo dib isugu soo laabto. Jaceylkii midooba ayay noqdeen, farxaddii is hesha ayay noqdeen. Maasha Allah, wallaahi noloshu waxay ku macaan tahay lamaanaha. Qof walba dunida ku nool lamaana ayaan u rajeynayaa, intii aan haysanin Allah siiyo, intii haysatana kuwa isku waara, ubad kheyr qaba kala hela. Aniga xataa farxadda ay iga badatay, ubad kheyr qaba kala hela Allah idinka wada dhigo, dad isku wada farxana Allah idinka dhigo dhammaantiinaba. Maasha Allah. Wiilkaasi gabadhaasna sidii ayay isku hanteen boqoradii jaceylka markii ay dabaqa iska soo tuurtay.
waxay noqotay qof aaban waxba gaarin sidii ay ku duceysatay. Waxay tiri waxaan tegayaa halkii eebbahey iigu talagalay amba ilaahay iigu talagalay ayaan tegi doonaa ayay tiri haddaan dhinto oon ka badbaado. Haddaan ka badbaadona waxaan heli doonaa jaceylkayga. Waxayna heshay jaceylkeeda maasha Allah. Qof walbana Allah u barakeeyo hadduu jaceyl haysto. Qofkaan haysaninna mid kheyr qabo Allah ha siiyo oo aad u faraxsan oo farxad geliyo oo nolosha dhadhankeeda dareensiiyo maasha Allah ayaan leeyahay. Waxaana taageeraa mar walbo jaceylka iyo weliba horumarka nolosha amba qoyska maasha Allah. Walaalahayga qaaliga halkaas ayaan kusoo gabagabeeyay boqoradii qasriga ama boqoradii jaceylka. Waxaan kusoo gabagabeeyay halkaas. waxaana idin leeyahay macsalaamo. Like-ta iyo share-ta commentiga wax waliba halkaas ayaad noogu soo qori doontaa insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalahayga qaaliga intaa markaan iyo marka xigo dib ugu kulmi doono. Macsalaamo.